waaxda cadaaladda waddanka Holland Openbar Ministry ayaa soo saartay go'aan lid ku ah hogaamiyaha xisbiga midigta fog Party for the Freiheit xisbiga xorriyadda oo lagu magacaabo Chris Wilders ayaa lagu eedeeyay ereyo dhiirigelin kara kala soociyo inuu aflagaadeeyay koox ka mid ah muwaadiniinta waddanka Holland aflagaadadaas oo ku salaysan jinsiyadda Korea nacayb. go'aankan ayaa yimid kadib markii bishii May xilli lagu jiray ololaha doorashooyinka golaha deegaanka waddanka Holland khudbad uu u jeedinayay taageerayaashiisa uu ku daray in dadka degan magaalada Den Haag ee waddanka Holland ay rabaan in la yareeyo Marookaanka ku nool magaaladaasi iyo waliba ereyo ka dhan ah muslimiinta ku nool waddanka Holland. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Wilders ayaa waxaa dacwad ku gudbiyay kumanaan ka mid ah muslimiinta magaalada Den Haag waxayna u qabsadeen qareeno u dooda. waaxda cadaaladda waddanka Holland ayaa u aragtay hadalka Wilders mid keenaya takoor kicin iyo xaalad abuur. qareenada dawladda ayaa baaraysa hogaamiyaha xisbiga cunsuriga waxayna cadeeyeen in maxkamad la soo taagi doono. Ari Cruz gudoomiyaha laanta qaranka ee ka hortagga takoorka ayaa cadeysay inay aad ugu faraxsan tahay in ugu dambeyntii go'aan laga qaato Wilders maxkamadna la soo taago iyo in ay jiraan cadeymo xoojinaya go'aankaasi. qareenka u doodayo hogaamiyahan ayaa cadeeyay in ay ka hortagayaan dacwad walba oo ka dhan ah Wilders. ugu dambeyntii haddii dambigan lagu helo hogaamiyaha xisbiga xorriyadda ayaa wuxuu mutaysan doonaa xabsi 1 sano ah. Tawfiiq Shira Muuse, Puntland TV, magaalada Hague waddanka Holland.